in particular the importance of a written document as proof of a tacit agreement. maalin wanaagsan daawadayaal waa volleyball iyo warbixinta maanta oo aan diiradda ku saarayno war weyn oo farxad gelinaya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan wadaniyiinta dalkooda jecel waa go'aan horudhaca oo ka soo baxay maxkamadda adduunka kaasi oo ka nixiyay Kenya laguna sheegay in Soomaaliya ay leedahay badda weyn ee Kenya sheegatay waxaan warbixintan kooban ee volleyball news ku faahfaahinaynaa xogta go'aanka maxkamadda guusha Soomaaliya jabka Kenya iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo u diyaar garoobaya in badda laga difaaco Kenyaatiga damaca xun hase yeeshee ugu horeyn Soomaaliyay sheergareeya warbixintan idinkoo like saaraya sidoo kale si dadka oo dhan u wada arkaan waa tahay ilo xagga diblomaasiyadda ayaa soo ogaaday in si horudhaca loo soo saaray go'aanka ama xukunka maxkamadda adduunka ee ICJ-da ee kiiska badda Soomaaliya ee ay Kenya sheeganaysay guusha ayaana waxaa helay Soomaaliya oo in ay baddu leedahay loo xukumay wararka waxaanu ku helnay oo volleyball news loogu soo gudbiyay in khamiistii la soo dhaafay la gaaray go'aanka maxkamadda ee garsoorayaasha balse ay harsan tahay oo kaliya in si rasmi ah loogu dhawaaqo taasi oona la filayo in lagu soo saaro faafinta internetka ee maxkamadda iyo waraaqaha loo wada dirayo Soomaaliya Kenya iyo qaramada midoobay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo kiiskan si dhow ula socday ayaa tilmaamay in go'aanka maxkamadda la gaaray oo Soomaaliya ay guul weyn u tahay iyadoo Kenya durba walwal soo wajahay ciidamada difaaca qaranka Soomaaliyeed cutubyo kamida ayaa loo diyaarinayaa in ay gaaraan baddeena qaybta ay Kenya muranka gelisay waxaana la doonayaa in ay difaacaan waa haddii ay Kenya isku daydo in ay diido go'aanka maxkamadda ee lagu cadeynayo guusha Soomaaliya warkan sida horudhaca ay uga soo baxay maxkamadda ICJ-da ayaa waxa uu yahay mid si weyn u farxad gelinaya shacabka Soomaaliyeed waxaana jira shacabka ku nool dalka dibadiisa oo si horudhaca arrintan u maqlay in ay sameynayaan dabaaldegyo waaweyn oo arrintan ay ku soo dhaweynayaan Kenya oo damac xun horay ugu jiray ayaa xilligan waxa ay markaa muujinaysaa in uu soo wajahay quus aad u daran oo ay ku hungowday damaceedii xumaa ee ah in ay baddeenu markaa qayb ka mid ah qaadato taasi oo u suuroobi weysay in damacii hadafka ay lahayd ay gaarto arrintan oo uu horay siyaabo kala duwan gorgortan hoose ula galo ka diiday Kenya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo Kenya ku cadaadiyay in ay ku qanacsanaato go'aanka ka soo baxaya maxkamadda ICJ-da oo ay Soomaaliya ku qanacsan tahay 15 Maaj oo dacwadan ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ-da ka socotay kana bilaabatay waxaa markaa Soomaaliya ay horay u sheegtay kaliya in ay ku qanacsan tahay go'aanada ka soo bixi doona maxkamadda waxaana fadhigaasi guud ahaanba laga waayay dawladda Kenya oo iyadu markaa ay xilligaa sheegtay oo codsatay in dib loo dhigo maxkamadda waxaana markaa arrinkaasi ka biyo diiday maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ-da xilliganna wararka horudhaca ee volleyball ay helayso kaliya waxaa harsan in maxkamadda qaabka faafinta internetka ay ku shaaciso go'aanka oo Soomaaliya loo xukumay baddeeda
haddaba daawade maxay kula tahay arrinkan in Soomaaliya ay ku gaartay yaase Soomaaliya guushan u soo hoyay fadlan fikirkaaga waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag annaga oo mar walba ka fogaanayna wax kasta oo dib u dhigi kara horumarka dalkeena waana rajaynaynaa in aad aragtidaasi nala qaadataan mahadsanidin